dagaalka ee jooniska casriga ah inay Iiraan dhulka soo dhigtay xog ayaynu idinkaga haynaa xubinta koowaad ee barnaamijkeena dhanka kale Xisbullah ayaa sheeganaya in ay weerar ku qaadeen ciidamada xukuumadda Israa'iil ee markaas ka dagaalamaya South of Lebanon dhanka kalena daawadayaal warbaahinta Mareykanka ayaa waxa ay diyaarisay warbixin la yaab leh oo ku saabsan Iiraan inay 9 xarun oo 9 saldhig military Mareykanku uu leeyahay 48 saacadood ay ku weerareen video ayaanu idiin haynaa arrintaas warbixinteeda ku saabsan waa 6 bisha 3 sanadka 2026 dagaalkuna maalintii 6aad ayuu galay haddaba daawadayaal qodobadaas iyo kuwa kale ayaanu barnaamijkeedii kugu haynaa haddii Allah awoodda la yiraahdo u diyaar garoobo goordhow idinkoo mahadsan isku soo noqod wanaagsan daawadayaal sidaad halkan ka arkaysaanba warbaahinta Al Jazeera ayaa waxa ay tabinaysaa warka haatan halkan idinkaga muuqda ee ah markaa dowladda dalka Iiraan warbaahinteedu inay tabinaysa inay 2 diyaaradood oo kuwa jooniska ay markaas ay dhulka soo dhigtay waase iyagu hadalka u sheegeen galo diyaaradaha noocooda ayaa la sheegay inay yihiin MQ-9 nooca la yiraahdo ee casriga ah ee dowladda dalka Mareykanku ay leedahay iyo waliba diyaarado kale oo joonis laakiin noocaas ka duwan warbaahinta Iiraan ayaa tabinaysa iyo waliba Al Jazeera labaduba warkaan la 31 mirir ka hor ayuu markaas saxaafadda Al Jazeera warbaahinta Al Jazeera ay tabisay arrintan ayaa ku soo beegmaysa daawadayaal xilli dagaalku maalintii 6aad uu galay maalinba maalinta ka dambeysana uuna sii ballaaranayo khatartiisuna ay markaa faraha ka sii baxayso dhanka kale Israa'iil iyo Mareykanka ayaa waxa ay sheeganayaan gaar ahaan ciidanka cirka ee Israa'iil in ay markaas 6 goobood oo markaas gantaalada riddada dheer Iiraan ay kaga soo weeraraysay Israa'iil iyo Mareykanka in ay markaa digada ka dhigeen si kastaba ha ahaatee daawadayaal Iiraan ilaa iyo haatan ma aysan soo bandhiginin markaas muuqaalo waxagaag warkaas haatan war kale ayaa ku soo kordhay waxagaag 6 qof ayaa Israa'iil weerar ay qaaday markaas la sheegay in laftigoodu ay 6 qof haatan ay ku dhaawacantay isla mar ahaantaasna tasmiim news agency ayaa warinaya warkaas intaan halkan ku jirna ayaanu dib u eegi doonaa haddii ay wax soo taraan hase yeeshee halkan 17 daqiiqo ka hor haddaad eegtid Xisbullah ayaa dhankooda sheegtay markaas in ay weerar ku qaadeen ciidamada Israa'iil ee South Lebanon ka dagaalamaya dagaalka laftigiisu inuu socdo ayaa lagu soo warramayaa waxayna sheegeen inay bartilmaameedsadeen markaas gaadiidka militariga ee Israa'iil haddii aynu haddaba daawadayaal wararkaas aynu halkaas ogaga baxno waxa kaloo lagu soo warramayaa Mareykanka boqolkii saac ee u horreysay ee dagaalka 3.7 bilyan ayaa kaga baxay 100 saacadood oo keliya 3.7 bilyan ayaa kaga baxay xilli dadkii Mareykanka in badan oo ka mid ah beerka dhulka ay ku hayaan shidaalkii cirka isku shareeray Donald Trumpna kalarka lagu dhagayo leeyahay maxay u dhimanayaan raggeena iyo dumarkeenu dagaal ugu dhimanayaan oo lacagta intaa leeg ay noo bixinayna intaanuna waa bilow iyo boqolkii maalmood u horreysay laakiin waxaa la rajaynayaa inay balaayiin lacag ay noqoto ayaa la qiyaasaya waxaan jeclahay haatan warbixintan cajiibka daawadayaal inaan idinka dabageeyo oo aad iyo aad markaas saxaafaddu ay u rogrogayso CNN ayaa tabinaysa waxa ayna sheegeen 48 saac ee ugu horreysay dowladda dalka Iiraan ciidamadeedu inay weerareen markaas 9 saldhig military oo Mareykanku uu leeyahay oo 4 ka mid ah ay Kuwait tahay wala meesha 6 askari lagu dilay 5 kalena dhaawaca halista uu ka soo gaaray isla mar ahaantaasna tiro kale oo aan la sheeginin inta ay tahayna dhaawac fudud uu ka soo gaaray 4 ka mid ah saldhigyada military Kuwait ayay ku yaalaan 2 imaaraadkay ku yaalaan mid Qatar ayuu ku yaalaa midna Bahrain midna wuxuu ku yaalaa Ciraaq haddaba warbixintan aynu isla daawano la yaab kale xaqiiqatan ee markaas warbaahintan CNN isku dabartay daawasho wacan
has struck Al Udeid Air Base in Qatar. That is the largest military installation for the United States in the entire Middle East. And it comes as a new CNN investigation is now looking specifically at the American targets hit so far by Iranian strikes, every single one of them. Tamara Koblawi is out front. Satellite imagery showing the extent of the damage to U.S. military facilities across Gulf Arab countries is starting to emerge, part of Iran's furious response to an Israeli-American campaign that decimated its leadership. At least 9 U.S. military positions have been hit in less than 48 hours. These are relatively close targets. They're much nearer to Iran than its usual target, Israel. That proximity may give Iran's missiles and drones intaan hadda noo muuqata sagaalka saldhig military ayay Iiraan 48 saac ku weerartay. waa waxyaalaha khubarada militarigu ay aad iyo aad u rogrogayaan dagaalkiina sii ballaariyey ilaa Donald Trump uu yiri la yaab ayay ugu noqotay sida dagaalku uu faraha uga baxay iyo Iiraan inay weerartay wadamadii jaarka ahayd. inta weerarkan Iiraan aysan qaadanin ayay wadamada Carbeed iyo dowladda dalka Turkigu ay kaga digeen Donald Trump in aan markaas Iiraan dagaal lagu qaadanin. haddana sida kastoo tahay cid waxba kama dhageysan. waa kan a better chance of hitting their targets. This is the port of Shuaiba, where just after 9 a.m. on Sunday morning, an Iranian strike set a makeshift U.S. operations center at the civilian port ablaze. 6 American service members were killed in the attack. You can see smoke rising from the fire. The blown-out 3-wide trailer blackened on the inside. There are few signs of fortification. In another attack, a drone, this appears to be the Arash 2, crashes into U.S. positions in Camp Buring. meelaha diyaaradahan iyo gantaaladan ay bartilmaameedsadeen ayaa daawadayaal waxaa la sheegay inay tahay markaas meelaha raydaarada ay ku xiran yihiin oo ujeedada dowladda Iiraan waxay tahay ayaa la yiri code and code inay markaa Mareykanka ay ka goyso caalamka intiisa kale oo ay dhatirto oo raadeerkii aad wax ku arkaysay haddii uu uusan kuu shaqaynaynin xiriirkaaga iyo qorshahaaga military inaadan ku guuleysanaynin ayaa muuqata ayaa leeyahay oo raadeerku dagaalka qayb weyn ayuu ka yahay hadday ahaan lahayd dhinaca saadaasha dhinaca ka hortagga iyo dhinaca markaa gantaalada meesha ay la beegsanayaan intaba. marka Iiraan waxay doonaysay inay kala jarto oo Mareykanka ay ka jarto caalamka intiisa kale. waa kana dhageyso. A building severely damaged. American helicopters parked inside the base were nearly hit. In Bahrain, a Shahid attack drone flies into the base that hosts the U.S. Navy's 5th Fleet, one of the largest American naval formations in the world. It looks alarmingly defenseless. The drone hits one satellite communication terminal, clearly seen here. But the scale of the damage is more obvious here, warehouses and other buildings damaged. And another satellite communication. waxaas waa khasaaraha soo gaaray dowladda dalka Mareykanka oo baaritaankan CNN ay samaysay markaa lagu ogaaday gaar ahaan hadda qaybtan Bahrain iyo kuwii ka horreeyay arkayseen oo markaa gobolka oo dhan markaa laga reebo Sacuudiga ay markaa soo qabteen waxay idin dulqaado Sacuudiga marka laga reebo inta kale oo dhan weerarkan gantaaladan waa lala beegsanay iyo joonadan dagaalkuna waxaa muuqatay inuu faraha ka sii baxayo. Sacuudiga waxaysan u bartilmaameedsan warbixintan laguma sheeganin laakiin Sacuudiga meelo kale ayay weerareen sida safaaradii iyo xaruntii dhexe ee CIA ay halkaa ku lahayd oo waxba isku jira. waa communication terminal destroyed in a separate attack. We see this pattern of targeting throughout the region. At least 5 satellite communication terminals were destroyed. It points to a possible Iranian effort to cut U.S. bases off from the outside world. Iran used an unprecedented barrage of missiles and drones. U.S. Patriot missiles and other multi-billion-dollar air defense systems shot most of these out of the sky. But the ones that got through were qaar ka mid ah gantaalada Iiraan iyo Jooniska waxaa ka hortagay ayaa la yiri difaaca cirka ee Mareykanka ee bariga dhexe yaala laakiin qaarkii dusay khasaarahoodu waa mid muuqata oo aan la qaran karaynin. arrintan ayaa kusoo beegmaysa xilli dagaalku 6 maalmood oo qura uu jiro oo uusan weli si fiican u curanin lala aaminsan yahay in la isku baabi'i doono. dhinaca kale khabiir Robert Pepe la yiraahdo
oo aad iyo aad ugaga faallooda arrimaha ammaanka ayaa sheegay 100 sano lasoo dhaafay inaysan jirin militariga taariikhda militariga ku takhasusay jaamacadda Chicago waxa uuna yiri markaas 100 sano lasoo dhaafay ma jiro wadan inta cirka laga duqeeyay dowladdiisii la afgambiyo dowlad kale loo dhaliyay ma jirto shaamna waxaa la leeyahay kuma dhaco ciidamo fara badan oo Mareykan inuu geeyo gudaha dalka Iran haddaba xaaladdu halka ay maraysaa taasina waxa ay sii saadinaysaa ay leeyahay duqeynta isdaba jooga Iran ayada waxa laga doonaysaa ayaa la yiri inay adkaysato oo ay joogto oo ay dagaalkeeda sii wadato Iran maalin kasta oo ay sii joogto dowladda la bedelinin way adkaysi bay ka sii qaadaysaa Mareykankuna daciifnimo ayuu ka sii qaadayaa iyo markaa dhiigbax dhaqaale mid sumcadeed iyo weliba cadaadis uga imaanaya caalamka oo dhan iyo gudaha Mareykanka intaba haatan Erdogan ayaa wuxuu doonayaa inuu Iran iyo Mareykanka dhexdhexaadiyo Erdogan iyo Israa'iil isma tusi karo marka Erdogan wuxuu og yahay Trump inuu ku qancin karo waxaan ka xaliyay arrintii Bashar al-Assad oo adigii Israa'iil ay kala qayb qaatay dabadeedna Syria sida dowladda ay ugu dhalatay Hamas oo dadka haysteen ayaan soo daayay oo la'aanta imaadan xalin karinin tanna aniga igu cimaamad shalaad baratay waa la shubi jiray sidaas ayuu Trump doonayaa inuu yiraahdo Israa'iil oo hadafka ay ka leedahay dagaalkan aan gaarinina Israa'iil inay soo gabagabayso ma rabto Netanyahu wuxuu yiri 40 sano ayaan arrintan ku taabiyay ayuu leeyahay ayuu yiri sidaas awgeed waxa muuqata dalaho inay yihiin kaaf iyo kala dheeri aragti kala duwan qabo back to the video enough to puncture the veil of security around oil-rich Gulf Arab states and the heart of America's security infrastructure in the Middle East. Now, the question is just how long can Iran sustain these attacks? That depends on how big their stockpiles of missiles and drones are, which is currently unknown. And really, Aaron, it comes down to how quickly can the US and Israel achieve their stated objective of obliterating the missiles. Until that happens, Iran has made it clear that in the aftermath of the killing of Ayatollah Khamenei, it plans to sow as much chaos as possible to US interests in the Middle East and beyond. وهجاء إيران waxa ay sheeg su'aashu waxay tahay ay tiri Iran imisa ayay dagaalka wadi kartaa waxayna arrintaas ku xiran tahay habba gantaaladeeda iyo droneskeedu inta ay tala leeyihiin wasiirka arrimaha dibadda dowladda dalka Iran Jalal Abbas Araghchi ayaa sheegay meel ay kala geeyaan inay leeyihiin dhanka kalena wasaaradda gaashaandhigga afhayeen u hadlay oo ka hadlayay xarunta dhexe ee Khatam al-Anbiya ee dowladda dalka Iran ilaaladeeda kacaanka ayaa waxa uu sheegay saacadihii la soo dhaafay si aanu halkaa meedin kaga soo gudbinay hubkii halista ahaa saaxada Iran inaysan weli keeninin wixii raqiiska ahaa iyo wixii duuga ahaa oo ay horey u haysteen hadda inay ku dagaalamayaan xaaladdu markay khalaalaatana waa soo hadalka u dhigaya hubkeeda halista ay la soo bixi doonaan marka Iran imisay dagaalka wadi kartaa waxay ku xiran tahay hubka ay haysato ayaa la leeyahay oo intiisa badan dhulka hoostiisa markaa ku jira xogta laga hayaana ay aad u yar tahay waa hagaag daawadayaal war waxaan arkayaa haatan soo dhacay oo markaas ay tabinayso mid ka mid ah jariiradaha Israa'iil ka soo baxa wax yar idil qaada dowladda dalka Faransiiska ayaa conton French ships hadda ku sii wada bariga dhexe markaas oo ujeedadeedu ay tahay in ay markaa halkaas ay geyso maraakiibtaas dagaalka ee dowladda dalka Faransiisku ay leeyihiin si markaas ay xasanada bariga dhexe ka taagan ay kaga hortagaan wahagaag war kale oo hadda asal soo dhacaya waxa uu sheegayaa sidoo kale Iran in ay wacad ku martay in ay dagaalkan ay ballaariso weerarka ay wada ay markaas ballaariso gaar ahaan wixii ka dambeeyay dilkii Ayatollah Ali Khamenei warka gabigiisa waa saxaafadda hadda 4 daqiiqo ayuu ku jira ish aan hal mar isla marino inta aanan soo gabagabaynin jamco wanaagsan iyo jawi degan iyo jaalayaal akhyaar idin rajeynaya waa warkan haatan halkan ka muuqda DBA ay tabinayso 4 daqiiqo ayuu jira Iran go'aankeeda waa ka hadda waxaynu ka hadlaynay Iran imisa ayay dagaalka wadi kartaa Iran waxay leedahay haddaynu koynay oo dagaalkaba aanu soo galnay ciyaartuna mawlid oo lama bilaabanin Israa'iil iyo Mareykanka
ayaa duqaymo arxan darro ah oo isdaba jooga gudaha iiraan ka wada. jariirada New York Postna waxa ay sheegtay, New York Times waxa ay sheegtay in markaas ardaydii gabdhaha yararka ahaa ee da-dooda isugu jirtay 7 ilaa iyo markaas 12 maalintii koowaad iyo maalintii labaad midkood dagaalka lagu dilay duqeynta Israa'iil iyo Mareykanku ay wadaan ku dhintay, in ay markaa dowladda dalka Mareykanku ay ka dambeysay oo weerarkaas Israa'iil aysan qaadanin ee Mareykanku uu qaaday. dad ka faalloonaya qaarkood dhageystay waxa ay leeyihiin cidda fulisay lamaba xaqiijin karo, laakiin Israa'iil waxaa loo diiday in la yiraahdo ciyaal bay laysay oo tii Gaza ayay la daalaa dhacaysaa, marka tanna in loogu daro lama rabo. marka wixii xun baxaa waa la dal maqli jirtay Trump madaxa tan laga saaro ayay leeyihiin, laakiin is not confirm warar ah ama dowladeed maahan, waa shakhsiyaad ayagu aad iyo aad caan uga ah baraha bulshada oo markaa ajnabiga inay ka faalloodaan dagaalada bariga dhexe ka socda. si kastaba ha ahaatee dowladda dalka Mareykanka ayaa haatan madaxa laga saaray 182 gabdhood ayaa la sheegay weerarkaas inay ku dhinteen, oo qaarna dhaawac ay u dhinteen, qaarna jugtii horeba markaas ay u dhinteen. 7 jir ilaa iyo 12 jir weeyaan oo gabdho yar ah oo markaas saqiiro ah. waxaad garan kartaan haddii su-aasha la isweydiinaya idhaahdee waxay tahay haddii Jaala Putin madaxweynaha dalka Ruushku iskuul Ukraine ku yaala uu 10 gabdhood ku dili lahaa ayaa la leeyahay caamka waxa ka dhici lahaa dhulgariir. waa dictator, dhiigga carruurtuu jaqaa, ummaduu laayay, dadkuu baabi'iyey, carruur yaryar ayuu xasuuqay, waa barbaric, waxaasoo dhan baa la oran lahaa. maxaa haatan loo oran waayey 100 carruurta waxa ka badan ee la dilay aan waxba galabsanin ee barmageedada ah? carruurta iyo dadka barmageedada hadday muslim yihiin, hadday Jewish yihiin, hadday Christian yihiin, iyo hadday Buuda yihiin, iyo haddaysan waalidkooda waxba aysan aaminsanin, waa carruur weeyaan, mar walba waa innocent. Brit Somali TV ayaa daawanaysa.